waxaad ka soo qadayn magaalada ku xigtay qarsoontay waxaan markaa maskaxda ku soo dhici lahayd sidee bay suurtagelisay inay magaaladani hal habeen qarsoonto waxa kale aad markii way soo diin lahayd xagee ay qaatay dadkii ku noolaa magaalada balse waxaa kaaga siiya badnaan lahayd kadib markaad ogaato in dhacdadan tahay dhacdo xaqiiqi oo dhacday waxaana muddoocana maanta daawadayaal ku saabsan yahay dhacdo noocan ma qariib ah taas ku saabsan magaalo lagu magacaabo jiray Ashley oo qarsoontay waxaana magaalada ku noolaa 700 oo qof iyadoo magaalada dad ku noolna ay ahaayeen beeraley halkan aad naga daawanaysaana waa channelka khibrad maal aniguna waxaan ahay Yaxye Saciid ku soo dhawaada barnaamijkeena maanta mawduucana maanta waxa uu ka hadlayaa magaalo lagu magacaabo jiray Ashley taas ku taallay gobolka Kansas ee Mareykanka waxa ayna dhacdooyinka soo bilowday 17 August 1952 iyadoo maalintii haween ay dhaceen dhul gariir cabirkiisu ahaa 7.9 Richter taas oo ka dhacay isla goobta ay magaalada Ashley ku taallay waliba kaaga sii darnay waxa ay magaalada ku taallay goobta ama bu'da oo ka dhacay dhul gariirka laftigiisu kadib markaa u soo baxeen kooxihii gurmadka degdega ah si ay ugu gurmadaan goobta dhul gariir ka dhacay waxa ay u yimaadeen wax la yaab leh waxa uu yimaadeen iyadoo magaalada dhameed ay qarsoontay meeshii magaalada ku taalayna uu ka qodmo god aad u weyn kaasoo ballaciisu ahaa 500 oo mitir dhererkiisuna uu ahaa 1000 mitir waxa ayna kooxihii gurmadka degdega ah baadhitaankii wadeen muddo 2 usbuuc kadib markii wax natiijo ah ay ka gaari waayeen waxay go'aameen inay joojiyaan balse daawadayaal arrinka la yaab kale waxa uu ahaa kadib isla maalintii sida loo joojiyay maalinka ku xigtay waxa dhacay dhul gariir balse arrinka cajiibka ah isaguna waxa in dhul gariirka laftigiisu la qiyaas ahaa dhul gariirkii maalinka ka horreeyay dhacay kadib markii kooxihii gurmadka degdega ah ay goobtii yimaadeen waxay yimaadeen iyadoo godkii uu qarsoomay iyadoo godkaas oo yaqaaneen godkii shaxiimada waxa ayna doonidii baadigoob u galeen inay helaan cid ka badbaadiyo dhul gariirkaas taasoo ka warantay wixii ka dhacay goobta balse sidoo kale iyaguna waa ku guuldareyseen waxaana tiimkii ama kooxdii baadhiyay dhacdadan ay isku dayeen bal inay gaadhaan hal xidhaalaha dhacdadan iyadoo magaalada Ashley ahayd magaalo aad u yar oo aan lahayn wax police station ah waxa ayna dhanka ammaanha raacsaneed magaalada haystaas oo ku xigtay magaalada Ashley kadib markay magaalada yimaadeen ay police station ka yimaadeen waxa ka heleen wax aad u cajiib badan oo ka yaabiyay waxa ayna ka heleen xaruntii booliska wicitaano uga yimid magaalada Ashley kuwaas oo sheegay inay magaalada ku arkeen dawaahira ma calaamado aad u la yaab leh oo ku cajiiba iyagoo ka warramayeen magaalada dhakeeda ku samaysmeen gaab ama god weyn oo aad u madow waxayna dadkii Ashley ku noolaa bilaabeen inay aad u wacaan oo la xidhiidhaan saldhiggii booliska ee magaalada Hays iyagoo uga warramay dhacdadan cajiibka ah waliba iyagoo ka dalbanaya booliskii ku noolaa magaalada Hays inay soo gaaraan gurmad u soo fidiyaan waxa uuna taliyihii ka talinayay saldhigga magaalada Hays uu go'aansaday inuu askari u diro si uu u soo ogaado waxay dadka magaaladu sheegayaan balse arrinka cajiibka ah isaguna waxa kadib markii ninkii booliska gaarigiisa soo qaatay oo damcayna magaaladii soo aado iyadoo magaalada Ashley ay lahayd hal wado oo aan beer lahayn uu marka uu wadadii raacaba uu islaayay markii kalaba ku soo noqonaya isla saldhiggii booliska kadib markii uga warramay taliyihii waxa dhacay taliyihii mana u rumaysan ninka waxaanu ku eedeeyay inaan wacyigiisa joogin waxa uuna taliyihii mar kale diray 10 gaari boolis kuwaas oo ku amrayna soo eegaan dhacdadan balse arrinka cajiibka ah waxa iyaguna inay islaayeen sidii askari hore ku dhacday iyagana ku dhacday mar labaad waxaana taliyihii saldhigga markii dambe ku cakarantay xaaladii iyadoo ka caysay inuu wax kaalmaha u fidiyo dadkii magaalada Ashley waxa quriyatay awoodina waxa ay hadeen oo ku yiraahdo guryihiina jooga isna dajiya balse arrinka cajiibka ah isaguna waxa in maalinkii labaad ay la soo hadleen dadkii magaalada Ashley ayna ku wargeliyeen taliyihii inaanay maalinka qorraxda magaalada u soo bixin uuna godkiina bilaabay inuu aad u sii siyaado iyadoo godkaas uu magaalada ku sabayna magaaladii noqoto mugdi una suurtagelin waayeen in qorraxdii arkaan waxa ayna saldhigga booliska maalinkii saddexaad heleen wicitaan ka imanaya haweeney taas oo sheegaysa in inanteedii ay la hadlayso aabaheed balse arrinkaas arrin cajiib maaha balse waxa cajiib ah oo ay sheegtay inuu aabaheed u dhintay sanad ka hor uuna ka dalbanayo inantiisa inay soo raacaan iyada iyo hooyadeedba waxaana kadib ka soo daba dhacay wicitaanadii kuwaas oo ka imanayay isla magaalada Ashley taas oo dadkii wayeelka ahaa ay sheegayeen in ubadkoodu ay la hadlayeen dad aanay arkayn kuwaas oo ka dalbanaya inay raacaan waxa ayna isku dayeen askartii inay bal markii u dambeysay isku dayeen inay magaalada gaaraan waxa ayna qaateen diyaarad helicopter waxa ayna saacada ku dul wareegeen goobta ku taalay magaalada Ashley
balse arrinka isaguna la yaab kale waxa in ay magaalada arki waayeen oo ay kaatay magaalada been qarsoontay waxa ayna saldhiga booliisku Suleymaanka laftigiisa ay heleen wicitaan ka imanaya haweeney taasoo sheegaysa in jaarkeedii xaaskiisa iyo labadii carruur isku dayeen gaarigooda iyagoo adeegsanayna ka baxsan magaalada ayna ku qarsoomeen oo uu qeyb gudda ku hareeraysan magaalada iyagoo qaylinaya taasoo cidna ku dhacdeen oo gurmato iyadoo arrinkaas dadkii magaalada ku cabsi galiyay kana joojiyeen inay isku dayeen inay ka baxsadaan magaalada waxaana wicitaanada sidoo kale socdeen labadii casho ku xigtay iyagoo ka warramayay in ubadkii magaalada ku noolaa oo dham ay qarsoomeen aan raaskooda lahayn meel allaala meel ay aadeen balse waxa Suleymaanka laftigiisa soo gaaray saldhigii booliiska wicitaan aad u baqdin leh iyadoo ay soo qaracday saldhigga haweeney taasoo sheegaysa in inankeedii kaasoo dhintay sanad ka hor uu isaga oo gubanaya uu taagan yahay shaarica dhinaciisa kale waxaana intii uu askarigu la hadlayay uu maqlay sidii quraaro jabaysa oo kale waxaana uu ka dalbaday haweeneydii inay meel ku dhuumato waxaana uga warantay inay ku dhuumatay miis hoostii balse intii askarigu la hadlayay waxa uu maqlay cod leh hooyo kaasoo ku soo socda dhankii haweeneyda waxaana intii uu askarigu la hadlayay haweeneyda uu shucaac ama khalkhaliiro galay koolkii ama wicitaankii waxaana uu maqlay inankii oo leh hooyo waan ku helay waxaana uu maqlay intaa kadib haweeneydii oo qaylinaysa waxaana sidoo kale go'ay wicitaankii ama koolkii Hello, police department. Hello? Yes, hello? Ma'am, who am I speaking with? My name is April. April Foster. Please, sir, please help me. What is happening, ma'am? Last night they came back. Ma'am, I'm going to need you to... Last night they came back! Ma'am, I'm going to need you to calm down and speak clearly. What happened? Who came back? Everyone. Everyone? They all came in the fire. What do you mean, everyone? My son. I saw my son last night. He was walking. He was walking down the street. He was burned. Jesus Christ, he was burned. Ma'am, He died last year. I raised him since he was a baby. He was just me and him. I told him to watch for cars when he rode his bike, but he never wanted to listen. Ma'am, what you're saying isn't making any sense. You said everyone Are you came back? fucking listening to me? Everyone! Everyone came back. Everyone who died or went missing, they're back. They're looking for us. Ma'am. He said, Mommy, I'm okay now. See? I can walk again. Where are you, Mommy? I want to see you. Ma'am, where are you now? Are you safe? I'm hiding, just like everyone else. We saw them coming through the fields, and some people opened their doors for them. God, screaming. I don't know what happened to them, but their houses caught fire and they caved in. I have my curtains drawn. I'm in the closet right now and... Ma'am, is everything all right? Are you okay? Ma'am? Oh my Ma'am! God. Something just came out. Ma'am, stay as quiet as you can. Don't make a sound. He came inside. Stay absolutely still. Don't leave. Mommy, where are you hiding? Stay quiet. I found you, Mommy. Ma'am? Ma'am? waxaana maalinka xigtay go'ay kooliskii iyo wicitaanadii ka imanayay magaalada laba casho kadibna waxaa u dhacay dhulgariirkii aadka u awoodda badnaa kaasoo sababay inay qarsoonto gebi ahaanba magaaladii Ashley dhacdooyinkana aad u qariib haa daraaddeed si aan loo baqdin gelin dadka ku nool waddanka waa la qariyay dhammaan waxa laala wixii ka dhacay magaalada Ashley
waxaana ay dowladda Mareykanka ku goobsatay inuu magaalada qarsoomideeda uu sababay dhulgariir quriyaata waxayna noqotay qisadii magaaladana sidii wax khiyaal u eego kale aduu daawday markaad qiyaas oo kale maxay ku leegtay qisada magaaladan ma in dhacdooyinka la sheegayo oo dhan ay dhamaatay run yihiin base in arrinka laga badbadiyay waxaanan jawaabtiina ka sugaynaa commentiga hoose intaas ayaana ku eegay muuqaalkeena maanta inteena muuqaalka xigay sugu imaadana waxaan ku kala tagaynaa sidaa iyo salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh